gaadiidkan oo ahaa gaadiidka gaashaaman ee loogu talagalay inay ciidanka ay ku howlgalaan ayaa waxay dowladda Turkiga ugu talagashay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kumaandooska Gorgor ku howlgalaan. Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya iyo taliska ciidanka xoogga dalka ayaa la wareegay gaadiidkan loogu talagalay inay ku howlgalaan ciidanka kumaandooska ee xoogga dalka. Munaasabad loogu qabtay degmada magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay wasiiru dowlaha gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, safiirka Turkiga Soomaaliya, taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo saraakiil ka tirsan xoogga dalka iyo Turkiga. safiirka dowladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya Mahmed Yilmaz ayaa goobta ka hadlay wuxuuna sheegay in dowladda Turkiga markasta ay garab taagan tahay Soomaaliya. Somali Ulusal Ordusuna ülkemizin hibe ettiği çok ağır zırhlı kirpi marka araçlarımızla yine Somali Ulusal Ordusu'nun çeşitli operasyonda kullanacağı kamyon ve su tanklarını hibe törenini yapıyoruz burada. dowlaha gaashaandhigga taliyaha ciidamada qaranka Soomaaliya dhammaan marti sharafta ugu horeyn uga gudoomo salaan diiran salaan kadib maanta waxaan halkan u joognaa inaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aan ku wareejino gawaarida gaashaaman oo isugu jira hooyado iyo gawaaridu ciidamada ay u isticmaalaan howlgallada yaan u joognaa inaan ku wareejino ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. 2011 yılında Cumhurbaşkanımızın resmi başlayan bu kardeşlik ilişkisi her geçen gün daha ileriye giderek yeni boyutlar kazanıyor. xiriirka ka dhexeeya labada dal ee walaalaha ah oo soo bilowday 10 sano ka hor booqashadii madaxweynaheena oo ku yimid maalin kasii dambaysa wuxuu gaaraya xiriirkaas meel sare. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Odawaay Yuusuf Raage ayaa goobta ka hadlay isagana sidaas oo kale inuu mahad celiyo madaxda Soomaaliyeed ee runtii noo suurta geliya ayagana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dib u dhiskiisa hadday noqon lahayd dhinaca tababarka, hadday noqon lahayd dhinaca tayada, hadday noqon lahayd dhinaca qalabka iyo hadday noqon lahayd tasiilaadka kale ay u baahan yihiin inay nasiyaan fursadaha noocan ah oo ay nagu caawiyaan saaxiibadeena qaaliga ah si ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kaalintii uu lahay oo u buuxiyo aad iyo aad ayagana ugu mahad celinaya. ugu dambeyntii inaan u mahad celiyo dowladda Turkiga, guud ahaan shacabka Turkiga iyo madaxdiisa kala duwanba taageerada iyo runtii gacanta saaxiibtinimo iyo midda walaalnimo ee ay nala garab taagan yihiin ee ay dib ugu dhisayaan hay'adaha amniga Soomaaliya gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si aan kala go'o lahayn hagar la'aan saaxiibtinimo ah. wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cali Xagaa ayaa gabagabada goobta ka hadlay waxa uuna dowladda Turkiga kaga mahad celiyay taageerada ay siiyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. ismaha ciidanka dib u dhiska qaybta weyn aad ka qaadateen dib u dhiska ciidanka qaranka Soomaaliyeed iyadoo ciidan ahaan difcaddii tobnaad ay noo dhiban tahay imika in la qaado oo la geeyo ay tababar ku soo qaataan Turkiga qalabkan qiimaha badan la dagaalanka cadawga loogu talagalay noogu deeqdeen oo aad uga mahad celinayno. dowladda Turkiga ayaa ka mid ah dowladaha Soomaaliya ka taageera dhismaha iyo qalabaynta ciidanka qaranka Soomaaliyeed.